ardayda oo tiradoodu gaarayso 150 arday kuwaas oo bartay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Nugaal ayaa loo qabtay munaasabad sagootin. Munaasabadan ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Nugaal, maamulka gobolka Sool, kan degmada Laascaanood, ardayda qalin jabinaysa iskugu jira wiilal iyo gabdho. ugu horeen ku simaha gudoomiyaha jaamacadda Nugaal Cabdinaasir Axmed Barre Abusheebi ayaa ka warbixiyay ardayda maanta qalin jabinaysa iyo horumarka ay ku talaabsatay jaamacadda Nugaal. waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha caalamiga oo dalka ka furan, waxay ka mid tahay midowga jaamacadaha Spain iyo Africa, waxay ka mid tahay Eastern African Research and Innovation Management oo bariga Afrika dawladaha oo dhan ay ku jiraan, waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha Carabta oo in la soo kormeeriyo waliba dadka oo ka maadeen jaamacadaha ay jaamacadaha leedahay aad u badan waxaa ka cusub karaa jaamacadda Yatima oo Turkiga ku taala oo hadda ka wada master nutrition jaamacadda gudaheeda ku bixisa oo joint programs ay leedahay jaamacadda Bahrain oo joint programs iyo scholarships iyo research intaba aanu heshiis ku galay wadanka Suudaan ku taala. maamulka iyo xukuumadda waxaa leeyahay wax waxaan baan la maqashiiseen 2 sano ka hor waxaana looga ballanqaaday in dhismaha la saarayo dabar kale, waxaana looga ballanqaaday in la dhisayo martabad weyn, waxaana looga ballanqaaday hool aan meesha yar kaga raysano in la dhisi doono, laakiin ilaa haddeer warkii maqlaayay dhagahayagu maqlaayeen indhahayagu weli ma arkaan xukuumadda kaasana faray. sharaftii munaasabada ka soo qayb galay ayaa bogaadiyay jaamacadda Nugaal una hambaliyay ardayda maanta qalin jabinaysa. maanta magaalada Laascaanood in jaamacadda Nugaal iyo jaamacadaha kale ka shaqeynayaan waa guul Ilaahay weeye, waa arrin aan diya marnaahay laakiin hadda noqotay arrin dhaba Ilaahay baa ku macdinay. intaa kadib jaamacadda iyo magaalada soo martay iyo guulaha ay gaartay fulinta ayaa u dirin doonaa iyo guddoonka jaamacadda gudoomiyaha oo sheegay أولو كل الجماعات الإسلامية وكذا نارنا إن شاء الله تعالى هو المنطقة وكل من نعبر منه هذه حتى وحوي حتى وضعنا معاونا أنا حسبنا هاي إن شاء الله تعالى فوق كل الأمور وكل سلطة الجامعات شركة المجلس السلام هكذا بحياتنا إن شاء الله تعالى بإذن الله هذا هو اليوم. الله يجيب بركاته كل أكبرتين جامعات نقال المجال الرسالة يمجال الفورون يمجال أكلات المسكتية كل مشروع تنتظر أما شرعات أما أبواب الرجال وعليها وتصلها إلى مخزنها وشغل مختلفة. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Sahal Maxamed Jaamac ayaa hambaliyay bogaadin u diray ardayda maanta qalin jabinaysa. waxaa shahaadooyinka la guddoonsiiyay ardayda maanta qalin jabinaysa oo iskugu jiray wiilal iyo gabdho. waa Farxaan Maxamed Caydiid, wararka RTN Laascaanood.